Assalaamu calaykum. Waa idin salaamay dhammaantiina meel walbood joogtaan. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan. Alxamdulillaah, anigan waan caafimaad qabahay. Allah ayaa ku mahadsan oo dhammaanteena caafimaad ina siiyey. Waxaan rajaynayaa meel walbood joogto inuu fiidiyowgan ku soo gaaray. Haddii uu fiidiyowgan ku soo gaaray, nasiib ayaad leedahay. maxaa yeelay fiidiyowgan waxa uu xambaarsan yahay cilmi iyo aqoon. insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan dhammaantiinaba. run ahaantii dunidan aan maanta ku noolnahay waa duni casri ah. maxaa yeelay waxaad wax ku baran kartaa mobilkaaga ama laptopkaaga ama computerkaaga, ayaad wax walba ku baran kartaa adigoo u maraya hab internet ah oo keliya. maxaa yeelay internet waad wada haysataan, inta badan waxaad ku daawataan waxyaabaha maalayacniga ah. marka waxaa idinla talinayaa, aan nafteedan ula talinayaa inaan mar waliba kaga faa'iideysano dhanka wanaagsan. anigan waxaan jeclaystay in aan waxyaabaha aan dheerahay ama waxyaabaha aan garanayo inaan dadka walaalahayga Soomaaliyeed aan usii faa'iideeyo. run ahaantii taas ayaan jeclaystay. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan, idinkana aad ila fahmi doontaan ujeedadayda. sababtaan midaas u sameynayana waxa ay tahay, waxaa jirta xikmad dhahaysa maalka iyo aqoontaba waxa ay ku siyaadaan waa bixinta. macnaha markii aad maal haysato oo aad bixiso wuu ziyaadaya, nusqaan kuma imaanayso. sidoo kale marka aad wax taqaan ama cilmi aad taqaan, markaad bixiso asigan wuu ziyaadaya oo ma nusqaamaya. marka waxaan jeclaystay inaan dadka walaalahayga wanaagga naftayda waxay jeceshaa ayagana naftooda aan la jeclaado. insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. soo dhawaada. waxaynu ku balansaneynay xikmadeena ayaan bilaabi doonaa. ugu horeyn subject English, maadadu waa English day, taariikhda 10 bisha 12 2023. topic about wisdoms, mowduuc ku saabsan xikmado. mowduucan waxaan jeclaystay inaan kusoo qaadano xikmado aad u xiiso badan. maxaa yeelay xikmaduhu aad bay u fiican yihiin, nolosha ayaana laga bartaa. inta badan waxyaabaha noloshaada kusoo maray ayaad ka baran kartaa xikmadaha. cid walibana xikmad ma laho, xikmada dad ay gooni u tahay. waxaa jiro dad uu ilaahay ku maneystay. haddii aan laba xikmad ah aan ka soo qaado, xikmadii uu yiray allaha ka raali noqdee Cumar bin Khataab radiyallahu canhu, waxa uu yiray maalin walba waxaa la dhahaa hebel ayaa dhintay. maalin waxaa la maqli doonaa Cumar bin Khataab ayaa geeriyooday. xikmadiisa ayay ahayd midaas. xikmad kale ayuu waxa uu ku yiray faqrigu haddii uu nin ahaa lahaa waan dili lahaa ayuu yiray. waxaan rajaynayaa inaad labadaas xikmadood fahamteen. waxaan idinku fahansineeyay macnaha iyo muhiimadda ay xikmadu leedahay. intaasi xikmadeena koowaad waxa ay leedahay oo maanta halkan inoogu xusan waa xikmad English ah. waxaan u bedeli doonaa Soomaali. xikmadeena koowaad, sun is a single, moon is a single, I'm also single, that means all precious things are single. xikmadeena waxay leedahay, haddii aan Soomaali ahaan u bedelo oo aan u dhigo Soomaali ahaan, sun is a single, qoraxdu waa keli. moon is a single, dayaxuna waa keli ama bisha sidaad u taqaano waa keli. I'm also single, sidoo kale aniguna waxaan ahay keli. that means taas micnaheedu waa all precious things are single, dhammaan shayada ugu qaalisan adduunka waa keli. macnaha xikmadan waxay ku saabsan tahay qofka kelinimada ama qofka single-ka ah. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. haddana aan gudi galno xikmadeeni labaad. always smile in front of people who hate you because your happiness will kill them. always, had iyo jeer, smile dhoola cadee in front of people, dadka horteeda, who hate you, dadkaasoo adiga ku neceb, because maxaa yeelay your happiness, farxadaada, will kill them, iyagu way dili doontaa. tan waxay leedahay mar waliba ku hor dhoola cadee dadka adiga ku neceb, maxaa yeelay farxadaadu ayaga ayay dili doontaa. waxaan rajaynayaa in la fahmay. maxaa yeelay qofka cadowgaaga ah ma ogola inaad khushuusho oo dhoola cadayso oo aad faraxsanaato oo ka xun yahay, maadaama uu farxadaada ka xun yahay. sidaas darteed isaga dhaawac badan ay u geysanaysaa. waad fahamteen sidaan filayo macnaha xikmadaas. xikmadeena saddexaad waxay leedahay, success people always have two things on their lips, silence and smile. success people, dadka guuleysta mar waliba, always, mar kasta ama had iyo jeer, have two things on their lips,
faruuryahooda waxay leeyihiin ama afkooda waxaa laga arkaa laba shay. midda koowaad waxay tahay silence, aamusnaan. qofka macnaa oo qof guuleysanaya ama qof guuleystay ee uu aamus badan yahay. midda kaleetana waxay leedahay smile, dhoola cadayn. maxaa yeelay qofka markuu yahay qof successful person ah inta badan ma hadal badna oo sida dadka kale. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen micnaha xikmaddaasi. xikmaddeena afraad waxay leedahay show me your friend, I will show you your future. show me your friend, i tusi saaxiibkaaga, I will show you your future. waxaan ku tusi doonaa mustaqbalkaaga. tani waxay ku leedahay macnaa iska fiiri qofka aad la saaxiibayso ama saaxiibkaaga waxa uu saameyn weyn ku leeyahay mustaqbalkaaga. maxaa yeelay haddii aad saaxiib fiican la saaxiibto waxa uu ku siinayaa mustaqbal wanaagsan. haddii aad saaxiib xun la saaxiibtana sidoo kale waxaad ka dhexlaysaa mustaqbal xumo. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. xikmaddeena shanaad waxay leedahay sometimes the love is fake but hate was always real. sometimes marmarka qaar the love jaceylku is fake wuxuu noqon karaa mid aan jirin oo macnaa pen ah, fake ah, waxba kama jireen ah. but laakiin hate was always real, macnaha naceybka mar waliba waa mid dhab ah oo been ma noqon karo. ileen qof naceyb ma jili karo oo qof hadduu markuu necban yahay wuu ku necban yahay, balse jaceylka marmarka qaar been ayuu noqon karaa oo intiisa badan run uma badna ayay leedahay xikmaddaani. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. haddii taasi ay run tahay, haddii kale commentiga ila wadaaga insha allah. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen xikmaddaasi. xikmaddeena lixaad waxay leedahay a winner is a dreamer who never gives up. a winner, guuleystaha, is a dreamer, waa riyoode, who never gives up, kaasoo aan marnaba quursanin. macnaa qofka guuleysanaya ama qofka guuleystay waa qof riyoonayo mar waliba niyadiisa ama wuxuu ku riyoonayaa guushiisa ayuu ku riyoonayaa. who never gives up, macnaa marnaba ma quusto, si walba u guul dareysto mar waliba sigari ay iskaga jira wuxuuna ku riyoonayaa guushaasi uu rajaynayo inuu gaaro maalin maalmaha ka mid ah. waxaan rajaynayaa xikmaddaas inaad fahamteen. xikmaddeena toddobaad waxa ay ku leedahay mother is the queen of every home. hooyadu waa boqorada guri walba. waxaan rajaynayaa tan inaad idinkaba garanaysaan, maxaa yeelay hooyo macaan waad ogtihiin inay tahay boqorad. waxaan leeyahay intay hooyooyinkooda dhimatay allah u naxariisto, intay u nool yihiinna waxaan leeyahay allah u xafido cimri dheer cibaado leh allah siiyo. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen xikmaddaasi. mother is the queen of every home, hooyadu waa boqorada guri waliba. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. xikmaddeena sideedaad waxay leedahay don't believe in luck, don't believe in luck, believe in hard work. don't believe, ha aaminin ama ha rumaysanin in luck, nasiibka. maxaa dadka fara badan waxay aaminsan yihiin nasiib, wax walba nasiib inay ku helayaan, balse xikmaddan waxay ku leedahay nasiibka aaminin. believe in hard work, believe in hard work, aamin shaqada adag ama macnaa si adag u shaqeeya. inaad shaqaysato oo wax qabsato, waxqabadkaaga aamin ayay ku leedahay oo si adag u shaqayso oo nasiib iyo waxaas ha aaminin. xikmaddeena sagaalaad waxay leedahay a real man doesn't love thousand girls, he loves one girl in thousand ways. a real man, ninka dhabta ah, doesn't love, ma jeclaado, thousand girls, kun gabdhood. he loves one girl, wuxuu jeclaadaa hal gabar in thousand ways, asigoo u maraya kun wado. macnaha ninka dhabta ahi oo sida saxda oo macnaha wax u jeclaanayo ma jeclaado hal kun oo gabdhood ah, kaliya wuxuu jeclaadaa hal gabar asigoo isku dayaya siduu u heli lahaa inuu u maro kun wado. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. xikmaddaasina waxa ay ku saabsanayd ninka dhabta ahi ayaynu tilmaamaysay marka la joogo dhanka jaceylka, balse marmarka qaar way kala duwan yihiin dhinacyada kale iyo dhanka jaceylka marka la dhaho. kale kuma sii ficlaan dhanka jaceylka, idinka ayaa idin deynaya commentiga ila soo wadaaga haday runtahay haday kale xikmaddaasi. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. xikmaddeena tobanaad waxay leedahay if you are born in a poor family it means Allah give you a chance to make your family rich. if you are born, haddii aad ka dhalatay in a poor family, qoys oo macnaha faqiir ah oo aan waxba haysan, it means taas micnaheedu waxa ay tahay Allah give you a chance, Allah ayaa fursad kuu siiyey to make your family rich, to make your family rich. aad qoyskaaga aga dhigayso kuwa taajir ah.
micnaha xikmaddaani waxa ay leedahay haddii aad ka dhalatay qoys faqiir ah oo aan waxba haysan, taasi micnaheedu waxa ay tahay allah ayaa jaanis kuu siiyey oo aad qoyskaaga ama familkaaga aga dhigi karto kuwa taajir ah oo wax haysta. maxaa yeelay cid ma jirto oo ku dhalatay hanti ayagoo haysato dhalatay oo dhashteen ma jiro oo gacanta lacag ku wada ama hanti ku wada. cid walba way tabcatay, adduunka ayay nagu tabcadeen. micnaha waxaa loola jeedaa adiguna waad u tabci kartaa hanti iyo lacag qoyskaaga, taas oo aad kaga dhigayso kuwa taajir ah. marka adiga ayay kugu xiran tahay iyo waxqabadkaaga iyo sidaad u shaqaysato. marka ha isdhihin hebel muxuu taajir iyo aad faqiir u tahay. kaliya waxqabad ayaa laga rabaa inaad samayso oo aad dadaasho si aad qoyskaaga aga dhigto kuwa wax haysta oo aan faqri ahayn. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. waa idin salaamaya dhammaantiinaba. xikmadeena maanta halkaas ay inoogu ogyihiin. haddii aad xikmadahan ka hesheen waxaad qaybta commentiga igu soo qortaan. inoo soo badi insha allah, waan soo badin doonaa xikmado kuwaan kasii xiiso badan. xikmado badan waa idin hayaa, balse idinka ay idinku xiran tahay. haddii aad doonaysaan waa inoo diyaar, balse haddii aad doonaynin sidoo kale waa idinka daayi karaa. mar walba waxaan tixgelinayaa oo aan rabaa codsigiina iyo waxaad jeceshiina idin soo gudbiyo. intaan ku kulmi doono cashirkan cashirka xiga waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo insha allah. goodbye.